Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. إذا عشرة رمضان عن صوب برناي واسمع online training English ICT إذا عشرة رمضان عن كسر فايدة سناي بوجي develop skills وحن سوق لنا إلا يكونتون يعبر عشر بوجنا وهذا تقارنا والله عشر باسمع ستار online drive كذا كيد كوا وقفكي gaar u raba kaliya la soo xiriiri doono direct number somalistarabadiyo.com way kala soo xiriiri kartaa doontaan waa engineer Maxamed Axmed Barre iyo casharadiisa taxanaha migaanka arday walba oo jecel meel walba dunida aad ka joogan kutaan buugga afraad baan bilaabayaa magaciisu la yiraahdo Fluency English iyadoo casharo fara badan aan ka soo faa'iideysanay buugga agta internetka ku jirto laga helayo maxaa kamid ah First thing first, هذا جوجل كقرطة برا English first thing first وسهوليس أصلا ما يسترن practice and progress وسهوليس أصلا ما يسترن developing skills امتحان كنا ولا جري عمرك لا قاطبو يعني developing skills معنيش هو حرفها سوق ريو وأنا بو قيمة بدن لحد 10 بكوبين هاي idiom بيشوف جيران idiom بدن باكوجرو idiom وصار baby كان وكسي هذا جيا fluency English كا مركز steps كا English كم كلا برا يوينو هذا 10 ببوق كده بيا 10 كده بيا وينو كات كذا first thing first جوجل كوكور كسوهل practice and progress كسوهل developing skills لح 10 بان كريباي أو drive كنا كجرو موبايل كنا على سوق أيام ركلي لح 10 كليليا أما إيميل بان الله صدريا fluency English lesson 1 بان سوق لينيا حتى أركب مركا full diploma على قاعدنا يا مركا أنت 10 لقاعدة أنت صبوق 10 ده فيديو oo imtixaankii la galo oo live escape laga galo way imtixaanka diplomada la qaadanayo waa diyaar waana Somalistar online training iyadoo casharo fara badan aan la soo xiriiri doono waana muhiim jiddan taasi ardayga diplomada diif waa ka qaadan doona waana muhiim jiddan diploma sharciyeysan way waana very important taasi first thing first waa soo sheegay buug koowaad way practice and progress waa buugga labaad developing skills waa buugga saddexaad fluency English waa buugga afraad buugga kale grammar oo noo diyaarsan tahay buugga kale grammar qaar ardayda loo siinayo way jiraan waa ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan ardaydii ku sugnayd Arizona Santiago North Carolina iyo South Carolina iyo ardayda London iyo Birmingham City ku sugan iyo ardayda Norway Finland Denmark Switzerland Sweden ku kala sugan iyo ardayda Saudi Arabia Dubai Qatar Kuwait Turkiga ku sugan iyo ardayda Maine Soomaaliya ku sugan sida Muqdisho Hargeysa Boosaaso Galkacyo Beledweyne Baydhabo Shabeellaha Dhexe Jubbada Dhexe Bakool iyo Gedo si siman baa loo qaadan doonaa meel walba oo caalamka aad ka joogtaan waana la soo xiriiri doonaa somalistarabadiyo.com ama direct number ida casharo fara badan aan faa'iideysan doono cashirkeena ciwaankiisa buugga hoos buu kaga yaalaa ciwaanka finding the fossil man baa la yiraahdaa helitaankii fossil manka waa xabaalihii hore waa lafdugeedkii hore ama xabaalihii hore baa dhihi kartaa fossil man dadkii hore oo dhintay xabaalahoodii baa fossil man la yiraahdaa waa book 4 lesson 1 we can read waxaanu baran karnaa of things sheeyo that happened dhacay 5000 years ago 5000 sano ka hor in the nearest ka dhacay bariga dhow waa bariga dhexe in the nearest waa bariga dhow way yiraahdeen laakiin waa bariga dhexe weer halkaas oo people dadka first land marka hore ay barteen to write sida wax loo qoro bariga dhexe waa meesha ugu horeysay qoraalka laga barto dadka wax qori yaqaana carabahaas ahaayeen but laakiin there are wax ajira some parts qaybo kale of the world dunida where halkaas oo even now ilaa hadda people dadka cannot write is waxba qorin cannot write dunida waxa jira qaybo kale ilaa hadda dad aan waxba qorin but laakiin there are some parts waxa jira qaybo kale of the world dunida where halkaas oo even now ilaa maantada tan aan noolnahay people cannot write dadkaan waxba qori karin the only way habka kaliya that they can preserve ay ku xafidayaan their history taariikhdooda is to recount waa inay dib u xasuustaan recount dib u tirintii ma ahane dib u xasuusasho ku jirtaa iyada sheekada sagas waa sheekooyinkii asaadiirta ahaa buuggeena aan sharaxayo legends buu yiri waa asaadiir hore la soo wariyay handed down from one generation or generation of storytellers sheekayahana ay soo wariyeen to another ay u sheegeen generationkii xigay jiilba jiil waa meeshan ka niraahno these legends
asaadirtan ama sheekooyinkan are useful waa kuwa faa'iido u leh because sababtoo ah they can tell us waxay noo sheegi karaan something shay about migration socdaaladii of people dadka who live it long ago waa hore noolaa but laakiin none could write down what they did wax mid qori karaa kuma jirin waxay sameeyeen anthropologists dadka ku takhasusay cilmiga lafdugeedka wondered waxay isweydiiyeen where halka the remote ancestors hooyaashii hore of the Polynesian qoomiyadda la yiraahdo Polynesian people qoomiyadda Polynesian la yiraahdo now hadda living ku nool in the Pacific Island jasiiradaasi come from ka yimaadeen asagas usturooyinkii of these people dadkan explain ay ku sharaxeen that someone in qof sheekooyinkii ay noo sharaxeen weeye these people dadkan explain ay noo sharaxeen that some of them qayb ayaa ka mid ah come from inay ka yimaadeen Indonesia waddanka Indonesia la yiraahdo about 2000 years ago 2000 sano ka hor but laakiin the first people dadkii koowaad who were like ourselves oo annagoo kale ahaa nafaheenoo kale liber ku noolaa so long ago waa hore that even xataa their saga sheekooyinkoodii if they had any hadayba jireen if they had any waa dhextaal dadkii waa hore jiray sheekooyinkoodii weeye forgotten waa la iska ilaa intaas ku xiriirsan laakiin if they had any waa hadayba jireen forgotten waa la iska ilaaway so anthropologists dadka ku takhasusay cilmiga lafdugeedka have neither ma laha history taariikh nor legends mana laha asaadir to help them saacida to find out bal inay ogaadaan where the first modern men come from halkay ka yimaadeen dadka hadda casrigani nooli where the first modern men dadka hadda noole casrigani come from halkay ka yimaadeen virtually si wanaag however si walbay haato ancient men biniaadankii hore ama basharkii hore made tools qalabka waxay ka samaysan jireen of stone dhagax especially qaas ahaan flint nooca la yiraahdo flint dhagaxa xaleefka la yiraahdo qafiifka because sababtoo ah this is easier to shape asigaa fudud in uu qaabeeyo la qaabeeyo dan marka la barbar dhigo other kinds noocyada kale dhagxaanta they may also waxa kale have used ay isticmaali jireen wood looxaanta and skinny haraga but laakiin these have rotated away kuwa meesha way ka baxeen stone dhagaxa does not decide ma qurmo weeye and so sid aniyo so the tools ama qalabkii of long ago waa hore jiray have remained wuxuu baaqi ku sii ahaanaya when goortii even the bones xataa lafaha of the men raggii who made ayaga sameeyey yaadem ayaga have disappeared la waayo without trace ayagoo waxba aan ka tegin iyadoo cashiro fara badan aan soo qaadanay ardayda kala duwani waxaan qaadanay boogii afraad oo ahaa fluency English waxaan qaadanay cashirka koowaad halkaas ay isaga imaanayna cashiradeenii kala taxanaha wana very important sida darteed fi amaan Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi